si live arabna insha Allah inaan lacag u sameyno akoonkan ku trade garanayna dabcan waa arkaysaa 95.45 cents baa ku jirta ama $95 iyo 45 cents lacagtan ku trade garanayo waa lacagta daabka 15 minute time frame NY session way waana 5 bisha August maanta oo Talaada 2025 marka candle-kan hadda sa arkaysaan waxa inooga dhiman seconds 8 seconds camal ka dhiman body close ka saaro inuu igu xiro waana ORB model oo runtii model iska fudud modelkan ku trade garanayo markuu inoo xiro insha Allah anaga candle hadda uu furmay week baa doonayna inuu inoo sameeyo kadibna inuu ka soo qaadano trade-ka oo inuu buy u qaadano okay so I think halkaas inuu ka qaadan doona insha Allah doonay trade-ku inuu dhaafo actually so aan buy gareeyo suuqani waxaan ku buy gareyn doonaa 0.08 marka trade-ka 45 bib hadii uu yahay SL-kayga waxa uu noqon doonaa insha Allah target-kayga 70 bib inila 70 bib baan ka doonayaa okay trade-kan waxaan ku break fan gareyn doonaa inila TB1 ya ilaa 22 bib insha Allah baa inoo noqon doonta TB1 so trade-ka haduu xaggan yimaadana insha Allah re-entry baa kasoo sameyn doonaa maadaama aan meel sare ka baagarey sida arkayseen marar badan waxa dhacaysa inuu candle-ku maaragtay soo sameynin wiigaasi xoogan inuu xaggan yimaada kadib uu baxaa fahmaysa so inuu week yar sameysto kadibna uu baxo marka si uu trade-ku u dhaafin I have to take advantage marka so let us go aan isla aragna insha Allah trade-kani waxa uu ku dhamaado biinillah waxa dhan suuqa lagu sheegay runtii waxa weeye laba wax hadii aad isku dirtid suuqan waa ka guuleysanay arrinta koowaad waxay tahay tawakkalna cala Allah ya marka sada Ilaahay talada saaristid oo Ilaahay mataqaanaa aad ku kalsoon tahay suuqan insha Allah waxa waa ka guuleysanay qodobka labaadna wuxuu yahay de Ilaahay tala saara kaliya ma aha sababkiina la yimo soo fahmin aqoontiina la yimo taxadirkii la yimo everything waa fahanti marka inta hadii aad isku dartay insha Allah suuqan waa ka guuleysanaysaa oo biinillah trade-kan waa isla arkayna waxa uu ku dhamaado alxamdulillah sida arkaysaan suuqa TB1 buu joogaa so waxaa xiri doona insha Allah 0.05 close so only hadda suuqa maxaa ugu jira insha Allah 0.03 and then SL-keenana wuxuu inoo yaalaa insha Allah break even ku tuurayna ama trade ku xirayna that's all so gold aan si fiican baa ku garanaysaa ya trade-kan iminka actually entry point-kayga halkan waa laakiin haddana halkaan ka qaadanay sida arkaysa midda kale target-kayga aniga hadda waa $120 inuu na gaarsiiyo si markaas $25 aan akoonka increase aan ugu darno insha Allah ama 25% so hadda $111 camal oo noo wada profit $9 ay naga dhiman haduu inoogu daro insha Allah that's it trade-ka xitaa hadii aan full target gaarin waa ka bixi doonaa insha Allah alxamdulillah you can see so hadda 117 buu wada only $3 dhiman okay go ahead only $3 insha Allah dhiman ay u soo laabanayeen xaggan suuqa wuxuu ku sameystay gap si lamid ah isla lugtaan xaggan wuxuu ku sameystay gap kaleeto so waan arki doonaa insha Allah يعني $25 bro hadaynu trade-kan ka sameyno less than 20 minutes imagine يعني waxa weeye runtii waxaad u fiican some people way isdhihi karaan $25 hadda wax badan maaha ama way yar tahay laakiin xaqiiqada waxay tahay inaad $25 aad ku samaysay less than 20 minutes uma maleynayo waxa weeye inay maanta dunida ay aad inay sahlan tahay macnaha xitaa in case of haday jirto shaqo noocaas oo kaleeta oo lagu sameyn karo $25 less than 20 minutes lagu sameyn karo uma maleynayo inay shaqadaasi easy tahay it is very hard to be honest oo waliba lagu manage gareynayo lagu supervise gareynayo howlaheeda wadata macnaha but adoo kursiga ku fadhiya qolkaaga jooga inaad $25 samaysay less than 20 minutes يعني حقيقة wax reliable ma fahanti ilaahay wax lagu mahad celiyo kaliya waa fursadana sii marka trade-kana insha Allah waynu soo arki doonaa fahmaysa waxa u baahan tahay in emotion-kaaga ka adkaatid sababtoo markuu loska kugu socdo trade-ku waa haysanaysaa adoo isla ilaa uu loska ka soo saaro haysa trade-ka laga garaaci maayo trade-ku profit book siin doonaa soo ma
saa markaa isku adkeynaysid faa'iidada marka kuu socotona isku adkee ma fahmaysa tradeerka indhaha ka daawaxay ma garatay sometimes waxaa arkaya kanalkan oo kale si xoogan kugu soo laabanaya baa duu rabo oo sel ku xirmaya kadibna buy fiican buu ku siinaa kanalka ku xiga dhaqaaq fiican oo waxaan bullback bay kaa noqon kartaa kadibna aad maaragtay dhaqaaq fiican heli kartaa soo fiican adiga waqtigaaga iyo calafkaaga ha ka horumarin adiga ma fahantay still wait hold okay lastly alxamdulillah 119 okay I will close sorry shit so saa arkaysid yacni 119.99 almost $120 soo maa still wuu gaari karaa suuqu full target buu bixin karaa iminka I think 60 pip camal wadaa 56 pip weeyaan waxaan rajaynayaa traderka inta ay la socoteen inaa wax ka faa'iiday nabadgelyo